الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلهي baa marka hore mahad leh inagu kulmiyey goobtan iyo hoteelkan aan isugu nimaadno. waxaynu mar labaad u mahadnaqaynaa fadiilada sheekh maxamed cabdi umal oo runtii masaafo dheer inoo soo maray si uu wax inoogu faa'iideeyo. idinka ganacsatada runtii aad ba u mahadsantihiin maanta kulankan iyo qadadaba inoo sameeyey. ilaahay idinka abaalmariyo. sheekhu runtii waxa uu ka mid yahay masaa'ilkan ganacsiga la xidhiidha ee mucaasirka dadka ugu aqoonta badan ama ugu mumaarasada badan ayuu runtii ka mid yahay. markaynu ganacsanaynana runtii inaanay muhiimadeena ama ujeedadeennu ahaan xoola in la helo inaanay noqonin, laakiin xoolo iyo hanti xalaala inaynu helnaa arrin laga maarmaana weeye. wixii shubahaada iyo wixii xaaraanaba inaynu iska ilaalno waa arrin laga maarmaana. marka waxaan ugu talagalnay in su-aalihiina markaba soo gudbisaan, sheekhuna uu ka jawaabo, marka dambana waxoogaa kalimaad yar oo tawjiiha insha allahu tacaala aynu ku xigsiino. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. marka u horeysa aniga oo ku hadlaya afka ganacsatada halka fadhida su'aalaha ku wajahaysa sheekha, waxaan mahadnaq ballaaran soo jeedinayaa fadiilada sheekh maxamed cabdi umal waqtigiisa qaaliga ah, taymka uu inaga siiyey iyo safarka dheer ee uu inoo soo maray si uu inoogu faa'iideeyo. ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu sheekha ugu daro miisaanka xasanaadka. marka labaad waxaan u mahadnaqaynaa culummada kale ee waddanka ee ku qumay diyaafada sheekha waqtiga inay iyadoo aynu ognahay sheekha waqtigiisu caynka u yahay iyo sida uu musdaximka u yahay inoo ogolaaday in waqtigii qaaliga ahaa cidhiidhiga ahaa bar ka mida laynoogu soo jaro oo ugu horeeya sheekh maxamed cali jaamac. marka saddexaad waxaa halkan fadhida waa qayb yar oo ka mida ganacsatada reer Hargeysa oo kooban oo ka kala socota qaybaha kala duwan ee ganacsiga ama iibka uu yahay noocyadiisa kala duwan. waxay markaa ay isla qaateen in su'aalaha ama fataawaha mucaamalaadka maaliga ah ee ka jira magaaladeennan meelaha faraha badan leh ishkaalku inta badan uu kaga jiro in ay sheekha maanta jaaniska ay uga faa'iideystaan. mahadnaqa kadib waqtiga ugu kooban awgeed waxaan iska guudagelaynaa sheekh su'aalihii oo intooda badan su'aalo aan isla soo eegnay oo intii ugu muranka badnayd amba ishkaalku inta badan ku taagnaa u badan. haddii waqtiga waxay noo soo harana wixii halka ka soo dhex baxa amba walaalku gaar ay u hayaan aynu gaarkooda waxa weeyaan ugu sii deyno. sheekh su'aaluhu waxa ay ka kooban yihiin laba qaybood. qayb sekada ku tacalluqda, qaybna waa mucaamalaadka khaaska ah ee bayع sharaab ku saabsan. qayb sekada haddaynu ku horeyno sheekh su'aasha koobaad waxa weeyaan may bannaan tahay sheekh sekada in la sii qadimo sanadkii oon dhammaan oo qofkii sekadii wax ka mida uu sii bixiyo sanadkii markuu dhammaadana uu ka jaro xisaabta intii uu sii qadimay. jazaaka allahu khayr sheekh. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، سؤاشا جوابتيد waxa weeye sekada iyadoon xilligeedii gaadhin ma la sii horumarin karaa? jawaabtu waxa weeye say culimadu u badan yihiin haa waa la horumarin karaa. xadiis baa jira xasan ah oo Cabbaas bin Cabdilmutalib ku saabsan oo sugan oo masalada ku soo arooray baa jira. jumhuur ahli cilmina way qabaan in la horumarin karo. wakadalika majaamicda fiqiga iyo fataawida jamaaciga hadda saasay u badan yihiin. laakiin waxaa laga marmaan ah in dhowr qeyd lagu xidho ama dhowr daabit loo sameeyo. daabidka koobaadi waxa weeye
sakada maadaama waqtigeeda ayna gaadhin markaad bixinayso waa inuu niyo saka ruuxa ku bixiyo hadduusan niyo saka ku bixinin sadaqay markaa noqonaysa qodobka labaadi waxa weeyaan waa inaysan xidhin baabkii sadaqada oo xoolaha dee waxaa lagu leeyahay xuquuq sakada ka badan baa lagu leeyahay waxaan ka wadaa dadka qaar baa waxay sameeyaan shilinkii ay miskiin siiyaanba way qoraan kadibna markii xilligii la gaadho wuxuu leeyahay wixii aan bixiyo dhan buu isku dardaraya wuxuu leeyahay sakadaydii waa taas sax iyadana ma waa in baabka sadaqaduna furan yahay marka qaarkoodna waxaa dhici karta inaadan wax sakadii aad ku bixiso aadan haynino dad sakadii mudanna aad aragto marka waad sii horumarin karta laakiin baabkii sadaqada waa inuu furan ta kale waxa weeyaan haddaad wakiil tahay oo shirkad dad xoolo leeyihiin xoolo dad leeyihiin haddaad gacanta ku hayso ma horumarin kartid ilaa iyaga inaad idan ka haysato mooye laanna horumarisku nooc waxaa ku jira ixsaan ah nooc sadaqaa baa ku jira maxaa yeele xoolaha aad sii horumarinayso way u shaqayn lahaayeen muddada sakada waqtigeeda laga gaadhayo waxbay soo saari lahaayeen haddaad marka ay noqoto inaad horumariso waa in idanka aad horay uga haysato ama xeer hoosaadka ama nidaamka shirkadda ha ku qornaato ama si gooniya idan uga hel adoon idan ka helin ma horumarin kartid xoolaha aad wakiil ka tahay aad gacanta ku hayso laakiin kuwaad horumarin karto waa kuwaaga ama waa kuwaad idan u haysato wallahu aclam jazaaka allahu khayr sheekh baaraka allahu fiik su-aasha iyo furuucdii ay wadatayba sheekh waa inooga jawaabay hal farci oo su-aasha ka farcamaya ayaa jira oo shirkadaadka qaar ku shaqeeyaan ama muasasaadka qaar oo ah suuradeedu ay tahay in ay qabtaan barnaamij khayriya ama musaabaqo quraan ama musaabaqo arday ay u qabtaan taklifada ku baxdana ay xisaabiyaan sakada iyadoona meesha ayna ka marnayn niyad ah in taswiiq iyo nooc min dacaaya ay ku jirto shirkadii ay u tahay bismillaahir rahmaanir rahiim laba ishkaalba waa ku jira arinta iyada ishkaal wax weeye horta musaabaqaad quraaniya zakada ma lagu bixin karaayo masrifkii ay ku bixi lahayd maya mise maaha dhankaas ishkaal baa kaga jira oo dee 8 sinfi ama 8 nooc baa zakada la siiyey 8dii culimada qaar baa waxay soo geliyaan wixii dacwo iyo ku saaf fi sabiilillah hadaasay camimaan laakiin sida ixtiyaadku ku jiro in lagu khasisay ku fiican tahay ghuzaada ama wixii ka agdhow xajka oo kale iyo ku soo aroortay aathaartu marka halka horta ishkaal baa ka imaanaya ishkaalka labaadi waxa weeye waxaa la rabaa sakada aad bixinaysaay waa sadaqo waa waajib waa inaysan adiga intifaac kaa soo gaadhin waayo haddii sakadii aad bixinaysay aad dicaayo ka dhigato ama xayeysiin ganacsi aad u isticmaasho markaasi waxay waayeysaa tabarucii sarfiga ahaa ee loo baahnaa ayay waayeysaa nooc intifaacay noqonaysa sidaas daraaddeed labadaa dhinac waa ishkaal baa kaga jira mana banaanaanayso wallahu aclam jazaaka allahu khayr sheekh baaraka allahu fiik su-aasha saddexaad ee sakada ku saabsan inta badan ganacsatada ishkaalku kaga jira waxa weeye qaabka sakada marka la bixinayo ee shirkadda la xisaabiyo alaabta la sakeynayo ma waxaa lagu bixinayaa qiimihii asalka ahaa ee ay meherada ku taagnayd mise waxaa lagu bixinayaa qiimaha markaa lagu iibinayo dukaanka ay ku taalee markaa ay ku iibgelayso bismillah waa mas'ala khilaafiya oo بين العلماء خلاف كدحيو ama khilaaf dhex yaalo waxay si masaladu u xoog badan tahay in xoolaha lagu qiimeynayo marka qiimaha ay suuqa ka joogan ee aan lagu qiimeynin qiimihii asalkii la soo siiyay sababtuna waxa weeye waxa laga sakeynayo waa hantida laga sakeynayana qiimahay hanti ku tahay qiimahaasay marka yaa xaqa masaakiintu ku tacalluqaya haddii la yidhaahdo qiimihii la soo siiyey sicirkii asalka ah lagaga sakeeyo ama adaa dulmanaanaya ama miskiinkaa dulmanaanaya labadaa mid waaye haddaan sii faahfaahino haddii maalan qiimahaad ku soo iibisay ay badeecada hoos uga dhacdo maalan waxaad soo siisay $1,000 500 bay suuqa joogtaa markaa qiimihii asalkeed ku soo iibisay kaga sakee haddii lagu yidhaahdo markaasi adaa dulman sooma adaa dulman cagsi baa laga dhigi karaayo waxaa laga yaabaa inaad $1,000 soo siisay maantana ay 1,500 joogto haddii la yidhaahdo 1,000 kaga sakee oo qiimihii asalka ahaana miskiinkaa dulman markaas badeecadu markay hoos u dhacdana
adaa dulmanaanaya hadday kor aadana miskiinkii baa dulmanaanaya cadaaladdu marka waxay ku jirtaa maalinkaas suuqa waxay ku joogto adiguna kuma dulminid miskiinkuna kuma dulmana ra'yigaasa marka xoog badan oo qiimaha maalinka ay suuqa ka joogtay la iibinayo ayaa lagu qiimeynaya haddii bilmunaasaba maalan adiga waxaad iibisa uu jumlo yahay jumlahadaad xisaabsanaysa haddii yani badeecadaad uu tafaariiqda aad gadana tafaariiqdaad xisaabsanaysa qiimaha tafaariiqda marka qiimaha markaas ayaa lagu qiimeynaya wallahu aclam sheekh waxaa iyaduna taa ka farcamaysa dadka wax wada leh ee shirkad wada ah marka uu doonayo qof ka mid ahay inuu ka baxo shirkaddii meeshiina la xisaabinayo hantidii taallay ma sidan sekada oo kalaa la qiimeynayaa qiimahay marasa markaa lagu xisaabinayaa mise idii way ka duwan tahay oo qiimihii la soo siiyey ayaa loo xisaabinayaa mise qiimahay ku iibgelaysa markaasaa lagu xisaabinaya qofkii la khaarijinayay ee la doonaya shirkadda inuu ka baxo lacagtiisi la siiyo maalan dhanka qiimeynta badeecada wixii badeecada gadgadoonta ee baxaysa soo noqonaysa taa iyada qiimeynta waa isugu mid oo ruuxu markuu baxayo isku qiiman baa wixii suuqa ka joogtaa loogu qiimeynaya laakiin dhinac kale ka gedisantahay waxa weeye markuu ruux shirkadda ka baxayo shirkadoo dhan baa la qiimeynaya oo waxyaala aan qiimeynta sekada galaynin baa markan galaya waxaa galaya markatalan qalabka ay shirkaddu leedahay xafiisyadeedaa galaya magaceedu hadduu qiimo leedahay baa galaya asidka iyo yani muxuu ahay hantida maguurtada hadday leedahay baa galaya shirkadoo dhan baa la qiimeynaya markay noqoto ruux baa ka baxaya laakiin markay zaka noqoto zakada wax badan baa ka hadhaya oo xafiisyada iyo asidka marka aan iibka u oolinin lasii iibinaynin iyo qalabka muxuu ahay ay isticmaasho ee kombiyuutarada iyo waxani marka zakada la joogo ma galaan qiimeynta ma galaan laakiin markay noqoto shirkadda ruux baa ka baxaya kulli waa in la qiimeeyo xataa waxaa qiimeynta gelaya shirkadda magaceeda hadduu uu qiimo ku fadhiyo oo maanta haddii suuqa la geeyo la iibsan lahaa waa in la qiimeeyo sidaasuu ruuxu ku baxaya marka way kala gedsan yihiin dhinacaasay ka gedsanaanaysaa laakiin hantida gadmaysa ee wareegaysa iyada isku qiiman baa la siinaya isku qiiman baa la qiimeynaya qiimaha maalinka ay suuq ka joogto unbaa la qiimeynaya ruuxana baxaya sakadii baa la joogaa isku sin baa loo qiimeynaya wallahu aclam su-aasha shanaad sheekh sekada miyaa la siin karaa inamada meheradda ka shaqeeya iyada oo niyaddana ayna ka marhnayn dhiirigelin oo la doonayo inankii in lagu haysto meheradda uu sii joogo sekadiina la siinayo dhiirigelinna niyadda lagu hayo bismillahi raxmaan raxiim haddaan markii hore oo la shaqaalaynayay oo mishaarka ama manaafacaadku qaadanayo loo sheegahayay haddaan shardi ahaan loo raacin loo dhihin sekadana waa lagu siin doonaa oo shardi noocaasayna markii hore soo gelin ee markii uun shirkaddu ay sakada bixinayso uun ay waxay u garan karto u garato dhibaato ma leh maqsuudku markaa ma aha waa inuusan maqsuud ku noqonin ninkan shaqaalaha ah ee mushaarka la siinayo waa mushaar yacni ujratulmithli ah suuqa isagoo kale wuxuu ku shaqeeyo ayuu qaataa oo ma jirto wax la yidhaahdo sakadaad ku talageliye dee mushaar yar ku shaqee waa inuu ku shaqaynahayo isagoo kale waxay ku shaqeeyaan hadhow sakada markay gaadho hadduu dadkii mudnaayaho miskiin ama faqiir noqdo dee waxbuu laga siin karaya adigoon ku talagelin oo sidaa uunu caawiyay sakada wax ka siiyey haddii halkaa uun ay ka soo baxdo inuu dee shirkadda shaqaynteeda iyo inuu kula sii shaqeeyo kusii qanco raalli kusii noqdo dhib ma leh oo waa maqsuud oo tabaca wey maqsuud awali a maaha adigana marka waa qasadkaaga maaha laakiin wax weeyaan ninkani waa ka mid dadkii sakada lahaa waa siisa markii horena wixii aad u qortay saamayn kuma lahayno way kala baxsan yihin isaguna kuma tala gashanayn aduguna maadan u sheegin markaa wixii la siiya sakada waxbaa laga siin karaa hadduu asnaaftii mid ka mida soo galo wallahu aclam jasaaka allahu khayr sheekh baaraka allahu fiik su-aasha lixaad ee sheekh sekada ee ugu dambaysa 4 qaybood bay ka kala kooban tahay qaybo waxa weeyaan sheekh sakada ma lagu bixin karaa alaab ahaan oo ramadaanka oo kale markii gaadho dharka dadka masaakiinta iyadoo iskidii loo xisaabinayo dhar ahaan ma lagu siin karaa qaybta labaadna waxa weeyaan sheekh sakada waxa dhacda markii qaarkood qofkii sakadii bixiyey oo iska saaray ayaa maqalkiisa amba akoonkiisa ku sii jirtaa ilaa dhowr bilood 2-3 bilood bay qaataa oo xilligeedii ay dib u dhacday soo ama miskiin kale yimaado sugaya
amba sababo kaleba ay keensatay meelaha mushtaraka ah ee la wada leeyahay inta badan laaxada waa lagu qoraa qaabka zakada loo bixinayo laakiin dadka qaar bay ishkaal kaga jirtaa oo oranay marka shirkadii la xisaabiyo hal qof baa loo xil saaraa zakadii inuu wada bixiyo dadka qaar baa marka oranay anigu xoolahaygan zakadeedii maba arkaba marka qofkii marka hal mar la wada bixiyo qofka si gaarkiisa zakadii inay ugu gudayso iyo in qof kasta inuu gaar u bixiyo ay shardi tahay bismillaahir rahmaanir rahiim sida culimada jumhuurtoodu qabaan waxa loo yaqaano uruudu tijaara waa alaabta ganacsiga waxa lagaga zakeeyaa lacag baa lagaga zakeeyaa waana mid kiimanaysa in la qiimeeyo qiimeynta marka lacag baa ka baxda saasa marka asal ah oo materialkii aad ka ganacsanaysay lafahaantiisa zaka laguma bixiyo laakiin xaalado waxaa jira naadir oo culimada qaarkood ay sheegaanoo haddii ay dhacdo maalan inaad lacagtiiba weydo badeecadii waad haysaa lacagtii ma haysid waqtigii waa la gaadhay waad qiimaysay lacag kaashood markaad zakadii ku bixisana ma haysid markaasoo kale xaaladaas waa culimada qaarkood waxay yidhaahdaan waxaad ku bixinaysaa materialkii aad gadaysay dharkii wixii aad gadaysay baa qiimihiisaa la qiimeynayaa sidaasaad marka ku sakayn kartaa oo zakadii aad ku bixin kartaa cayntii curuudta ama alaabtii ganacsiga asalse ma aha asal maaha waa un xaala istithnaayo ruux waaye wuxuu bixiyo unbay u taallaa laakiin asalku waa in lacag lagu bixiyo saasaa asal masalada labaadna zakada loo bixinayo waxaa loo bixinayaa asal waxaa horta shayga mar hadduu shirka yahay shirkaddu waa inay nidaam leedahay waxay dadku isku ogyihiin waa inuu jiro oo zakada ku saabsan waa inay shirkaddu dadka shirkadda ay isku ogyihiin laba mid inay shirkaddu zakada bixiso iyo in ruux walba sakadiisa xilligii marka la gaadho lagu soo wareejiyo isagu bixiyo iyo suuro saddexaad oo in zakada la qaybiyo qaarna ruuxii lagu soo celiyo qaarna shirkaddu bixiso intuba waa sax hadduu ruuxu yidhaahdo zakadii xoolahay ka gooday shirkaddu ha bixiso ama iyaduba shardiga ay u dhigtay markuu soo galayay oo shirkaddu bixiso asaga waxa weeyaan wakiil baa laga yahay shirkadda wakiilka ah intaana way kaga gudmaysaa zakadii haddii uu yidhaahdo qaarna igu soo celiya qaarna idinku bixiyana waa sidoo kale haddii isagii lagu soo celiyo wada bixiyana waa la mid kullu daalika wax dhibaata male waa kulli waa bannaan tahay waa tawkiil iyo marna isagaa la baashirayo marna shirkaddu wakaalanaya wallahu aclam ayadana taa waa khalad zakada marba haddii waqtigeedii la gaadho ood xisaabiso waa inay gacantaada kusii jirin inay hantidaada baaqi kusii ahaato akawnkaaga kusii jirto waa khalad xataa culimmadu waxay leeyihiin miskiin soo socda inaad la sugtahay waa khalad waa inaad markaaba dadkii lahaa ee xaqa u lahaa aada siiso haddii meesha ilan asal ahaanba masalada waxa weeye zakada xoolaha ka go'da asal ahaan waxaa leh dadka meesha aad joogto xooluhu joogaan masaakiinta joogta iyo fuqarada iskale asal iyagaa iskale yani tu'khadu min aqniyaa'ihim faturaddu calaa fuqaraa'ihim ree yamaneed waay marka asalku dadkaasaa lagu bixin haddii ay jirto duruufo meesha markaa aad joogto ka culus ama ruuxa qaraabaad tihiin maalan oo qaraabnimadu waa caamil murajaxa waay haddii aad qaraaba tihiin yani waxa weeye laba ajir baa ku jiro sila wa sadaqa ama ma ahee meesha aad joogto meel kaloo waxaa jirta muslimiinta ka baahi badan oo ay dhammaanayaan oo kawaarith iyo dhibaata ka jirta markaana waa la naqlin karaa xaaladahaasoo kale mooyaane asal ahaan horta masaakiinta kula joogtaa iskale xaaladaha lafteeda waa inaysan markaa gacantaada kusii jirinoo ama wakiil aad ugu dhiibto iyaga wakiilka ah ama waa inaad markaaba adigu gaadhsiisa waa laakiin inay kula sii taallo waa khalad wallahu aclam